ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ slowly ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ay ay ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਦੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yo I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا أصحابتي إذا مالين عصب يوم وقال عصب maantay waxaan rabaa inaan meeshan ku soo dhaweeyo laba qof agteeda qaali ka ah oo mar hore aan rabay inaan soo dhaweeyo maantay banjaan ku helay gurigan ku casuumay alxamdulillah maanta casuumadeedu way iga aqbaleen waana soo dhaweeyay waxaan rabaa inaan ka wareysto waxyaalo yar yar oon saas u badneen iyagan waqtigooda inaan lumiyo mar rabo marka hore ku soo dhawow walaalkayga maxamed axmed jeylaani marka hore asxaabta laba iyo hal iide ما اسكو دنبيننا اني ادي اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان وادي السلام يا اصحابتا ku xiran Yusuf Ikiya asxaabtiis waxaan leeyahay horta soo dhawaada han la garabsiyo subscribe-ka yaa la xajin ilaag ma dijirmo comment wax walba dik xaqiin waaye marka insha Allah waa ku dhawaay jannatada aadan ma sha Allah waa mahadsan tahay niyahow waxa aan marka marar badan aan telefoonku soo dirayay oo maanta aan ku dhahay niyo waa ku baahanay ima wax kale ma ahan niyo waxaan daawaday riwaayooyin aad keentay yani aad lahayd fikrada riwaayooyinkaas aan laftirkeyga maalin u maleynaa inaan ka soo muuqday riwaayo aad diyaarisay maalin oo jaan ku jiray sheek daawanayskay waana niyo maalinkaas xitaa ma u maleynaa fikrada adi aan leedahay ileen ani wax kale aan kugu aqaanay inaad mufakir tahay oo riwaayooyinka ama sheekooyinka aad diyaariso laakiin waa la tacjibay marka waxaan rabay inaan ku weydiiyo anaan warka ku dheeraanaynin daaragtinimada farac ma u leedihiin awowgaada aabbahaaga ama aada laftirkaaga hore ma wax u diyaarin jirtay daaragta u aheedo marka inta imaad waa noo gabaneed miya bal ka dhacba sheekadan niyow ii dambaysa wallaahi horta runtii horta waxna waa saashigiisa waxna waa dhaxal oo farac ah waa gartay waxaan maqal jiray sinji waa lama guuraan sax marka labada meel markii la dhaho dhanka aabaheen wax waa ka soo qaad dhaxal ahaan dhanka abtiyaasheedin dhaxal waa ka soo qaad maxaa yeelay abtigeyga wuxuu ahaa jilaayo ugu weyn Soomaaliya qofaan aqoonin man maxamed Iker Jest nincaane waa ninkaas doctor weyn Soomaaliya waa ilaa marka adi inta ka keenta ma lagu dhahay dadkaas ay soo jeediyeen dadka aabaha markaan u soo baxana adeeradeeda aw koomba qof aan aqoonin man أو كومبي ليدا أو كومبي أو دانجي يو ولا يغنى ما أنا وزن صوت جل جلين أو كومبو أديركي أو كومبي أدير وكويا marka waa ninkii oo yani keeni Langruser oo boqol ku socod oo kaliya uu joojiyo meeq saac marka waxyaalo waxa jira qofka markuu farac yani uu saami uu leeyahay faracas ama qof waa ka qayb qaadanaa familkaas qof la ka soo dhaxbaxay marka sideedii baan waxaan iska isku shactar badan oo dadka qosulsiyo marka in badan hadda way ugu jirtay inaan aan keeno riwaayadaha mujaajilada waxyaalo badan wax markaas sameynayso wuxuu fiican yahay wax dhaxalgal inuu ahaa qofkan ka faa'iideysan karo aad kaga qosulsiin kartid niyahow horta riwaayooyinkan adna waan jilinkan aad ku jirtay oo fikradaheedan aad lahayd horta kuwaas waa dhaxalgal waa yihiin qofkii khusayso markuu fiirsado horta wax badan noloshiisa waa ka bedelaa ma sha Allah niyo marka ana muumaleyn waxaan u maleynay dadkaas dhan horta farac ku gala ma bisdeeyeen ma sha Allah niyo waana xataa dada isoo weydiiyay ilaa ma dad adi waalidkaaga iyo dadkaaga ka saayaan aaba igala soo xiriiray luuq igala soo xiriiray oo dhahayn Ahmed Jeylaan aan ku aqaana Ahmed Turki dada waxaan Ahmed Soomaaliya dhahan ninkaas waa iska magac sugan dhahay ninkaas jaanis dan ku helo aniga idin ku soo dhaweynaayo janalkiga ku casuumaya inuu afso Ahmed Soomaali dhahay in kale isaga weydiinayna marka waa bi cadeeyay Ahmed Soomaali la tahay dad badan iska soo weydiiyay waana weydaawan doona muuqaalkayga weyn ku arki doonaan niyahow ma sha Allah tabarakallah horta waa waxaan ku leeyahay hore u soco
ما شاء الله وجلين كاج iyo fikradahaagi waa mid aad muhiim ah waxaan aaminsanahay bulshadeena Soomaaliyeed waxaad u malaysaa inay u baahnayeen xilligii loogu talgalayna aad soo muuqatay laakiin inkastoo la rabay in mar hore aad ka soo muuqatid balse waxaan dhihi karaa waqtigii loo baahnaa ba imaataybo horta abuur walba waxa maqan jiray waqtigeeda dhamaata marka waxaan horta wadan ku soo jiray jeliinka laftigiisa iska sameeyo oo ama ma aan wax sahlan horta ma aan dadka si raaxay ku fiirsadaan laakiin dhibaato far badan laga soo maraa waqti uu gelinaa qofka sheekooyin waa inaad isku aadsaa waxyaalaha dhacay xataa qofka inaad yani mal rabo iska hadal yani macna ma keeno wax dhaxal gal ah had tusaalo walaashay Marisa midaan la keeno warwaayada oo la dhahay Ibrahim Galina daawad Ibrahim waa ma daawad leeymiya bismillah waa sugaabe Ibrahim galo wax bay ka hadlaysaa iska ma sameeyeen marka waxaas waa isfahansanaa niyo waxa kale oo maalinka aan ku dhahay adii inaad fikrad lahayd ani ma ka war haynin oo xitaa meeshaas maray aad igu cadsuundeen oo aad ii wacdeen aan laftirkay YouTube-kay waa tan soo geliyay ahayd in aan laftirkay waa ka helay waqti aan idin ka codsaday waxaan la yaabay meeshii oo baasaboorkan la qayo baasaboorkii dhanba waa cunay iyo waxyaalo badan oo qosol badan oo wax jiran ay ahayd wax jiran badan oo wallahi masaakiin ah oo lagu soo khiyaani jiray oo been loo soo sheegi jiray lacag meesh wax yar lagu tag wax badan laga qaadanayo wadankii iskaaga jiray laakiin waxaan rajaynayaa waxa inay soo gabgabo waqti loogu talgalan waa keentay ma sha Allah waxaan ku leeyahay hor u soco keep going insha Allah waa wax badan way ka faa'iideysan doonaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan oo daawadaan muuqaalada iyo riwaayooyinka hore u sii wad hana niyad jabin haddana waxaan u jeesanayaa walaasheed Mariso kuna dheeraan maayo wixii oo la dhihi lahaa horta Axmed Jilaani yaa bisheegaybo riwaayooyinkan wax badan waa ka soo muuqatay adana waxaan ka rabaa balse u aragtaa riwaayooyinkaas iyo sheekooyinka ninkan oo director ka oo fikradihii keenayo oo ma sha Allah tabarakallah oo dhamaanteen isla dhacnay oo xitaa dad badan dibadaha nagala soo xiriireen aan soo aragtay inkastoo aan ka mid ah jilayaasha wallahi sheekada tar aniga aad ay cajabisay abaanka fikradiisana waa wax oo aad aan ugu faraxnay waxyaabo kale oo soo waqtiga loo baahnaa inuu noo imaado aad waxyaabo kale oo soo wadnaa marka insha Allah hore u soconaynaa dawlada yiraahdo hadalkii aan dhihi lahaana Marisa marka ka dhaxgalo marka waxay u qosol qanactaa dib aan u qosol isku celiyo markaan buug weyn aan soo baxay qalin ee dhaad buug ay saawa iyo qornaa dad badan horta walaalo macaan dad badan waa isku dirtay dad badan xal waa u gaadar nin badan dad badan oo wax lagu xiliyo waxa laga yaabaa mustaqbalka dambe inay caadiga ahayn wala isku soo dalaa waxba jira waa hada waxyaabo iyo dacwad Malaysia hadii hore xitaa loo qori jirin had inuu qorto uu bixiyo kadib uu maalin kamid ah filimkeeda uu fahmi waayo gabadha uu buug weyn halka la imaado waxay haye intaana cunto ma wajigaaga uma bagin koode qof iga si durgaad u eg tahay keen lagu soo dalacay waxaan rajaynayaa intaysan waxaas dhan dhicin waxa la siinayna si kalgacayl niyad la si aan dib la isku soo noqonin adinkan waa mahadsantiin aad iyo aad mahadsantiin waqtigiina qaali aad maanta ii soo horteen asxaabteyda qaaliga ah insha Allah waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka heli doontaan ninkan isaan sidoo kale san idinku sheegay waaye YouTube-na wuu leeyahay Axmed Turkiya uu qoran kolba halkaas hoosaad ka arki doontaan Marisan sidoo kale YouTube ay leedahay Marisxina uu qoran أنا كل وكيل أتقيني مسكينكي ويه يوسف عبد القادر محمد يوسف إفيه أوفيشيال ويه وحرجينا مقال كتبه إيو ويلي بشيكو إيو قصة إيو وريسيو إيو روايدو انتبه هل كانت كبوغن دونتان وإذن سو ودنا نلا سعودة وحن إذن ليه هاي وقتها إذن وعنادو سيدا إيو نبت قليو